aan dib u milicsano taariikhda maanta oo kale 15 Agoosto 2015 waa maalintii dhidibada loo taagay Kaafiye Technology Center KTC hoyga teknoolajiyada iyo tababarada waxaana dhidibada u taagay KTC aqoon-yahano Soomaaliyeed oo dalka iyo dibadda wax ku bartay waana shirkad ka howlgasha dalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah dalalka bariga Afrika noocyada adeegyada ay shirkadu bixiso waa horumarinta softwareska tababarida ardayda IT-ga barata iyo suuqgeynta digitalka ah himiladeenu waa inaan noqono shirkad hormuud waa shirkadaha bixiya adeegyada IT-ga geeska Afrika iyadoo diiradda la saarayo hal abuur joogto ah iyo tayo sare KTC waxay soo saartay nidaamyo kala duwan oo lagu isticmaalo hay'adaha dawladda shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo ururada caalamiga ah macaamiisha ay shirkadu dhex martay wada shaqeynta xarumaha waxbarashada jaamacadda ummadda Soomaaliyeed jaamacadda Soomaaliya jaamacadda Joobkay jaamacadda Puntland State University jaamacadda Daarusalaam jaamacadda Daarul Xigma jaamacadda Ganaane Baydhabo jaamacadda Golden jaamacadda Quraanka Kariimka raabidada macaahidda sharciga Soomaaliya jaamacadda Aadan Cadde jaamacadda Marwazi jaamacadda Somafil jaamacadda culumta caafimaadka ee Xayaat iskuulka SYL Muqdisho International School muasasada Imam Shaafici iskuulka 21 November iskuulka Adult iskuulka Awbale degmada Marka iskuulka Alqalam degmada Afgooye iskuul Rambo Baydhabo iskuulka Al-Islam iskuulka Hayaan iskuulka Hanti Wadaag معهد tababarada BTI Somali Primary and Secondary School shirkadaha iyo ganacsiyada kale shirkadda Somtel Banaadir Water Development Company Muqdisho Power Supply Blue Sky Energy Ijabo Mineral Water shirkadda Gecko Dayax Power Supply maqaayadda Qobey maqaayadda Jazeera Royal Coffee Royal Hotels An'am Meat Company Chuba Water Supply Somali Optical Network Siman Hospital Al-Ihsan Eye Hospital Asal 24 Azul TV Somali Tomato Sauce adeegyada kale ay bixiso shirkadda waxaa ka mid ah adeega digital marketing samaynta website-yada iyo mobile apps-ka adeega hosting and domain-ka waxaan nahay shirkad rasmi ah oo bixiso domain.so tababarada iyo waxbarashada KTC waxay leedahay xarun tababar oo bixisa IT-ga 2500 arday ayaa ka qalin jabiyay tan markii la aasaasay oo ahayd 2015 barnaamijyada diploma ee ay bixiso waxaa ka mid ah web applications development mobile applications development data science professional Python and Java programming database management systems graphic design and multimedia computerized accounting camera and lighting techniques computer basic skills doorka bulshada iyo horumarka KTC waxay ku shaqeysaa xaqiijinta ujeedooyinka iyo hiigsiyada qaramada midoobe ee loogu talagalay in lagu shaqeeyo horumarinta dalalka laguna kobciyo karaanka aadanaha UN Sustainable Development Goals gaar ahaan qaybaha tayada waxbarashada hal abuurka horumarinta dhaqaalaha iyo hagaajinta adeegyada caafimaadka waxay ku dadaashaa KTC inay kordhiso xirfadaha dhalinyarada Soomaaliyeed si ay qayb uga qaataan tartanka digitalka ee caalamiga ah KTC xarunta hal abuurka teknoolajiyadeed ee dalka Soomaaliya